ururka haweenka degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado ayaa kulan soo dhaweyn iyo wada tashi u sameeyay wasiirka haweenka dowlad goboleedka Jubbaland Marwo Qamar Deeq Xaaji Khaliif oo kormeer shaqo ku joogtay degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado waana markii ugu horeysay oo ay wasiirka haweenka safar shaqo ku soo gaarto degmo kamid ah degmooyinka gobolka Gado waxaana ugu horeyntii hadalka daafuray gudoomiyaha ururka haweenka degmada Garbahaare Marwo Khadiija Cali Shire iyo xubno kale waxaa meeshan maanta lagu qabtay is arag ama kulan dadku hadba say u yaqaanaan ay la yeelanayso wasiirada ururka haweenka qaybihiisa kala duwan waxa ilaahay mahadiisa wax badan baan kala maqnay 5 sano ay wasiirad ahayd dad badan baa tabahayay oo ururku waa tabahayay waxay lahaayeen wasiiradu maxay kugu imaan weyday ayada naftirkeeda waxa laga yaabaa in ay islahayd aad u tagtid intaasna wax kale un ay ku maqnayd si kastaba ha ahaatee maanta chance bay haystaan ururka haweenka xafladan quruxda badan waxa halkan loogu dhigay wasiirad Qamar oo nooga timid maamul goboleedka Jubbaland magaalada Kismaayo waxaan halkan ka salaamayaa ururka hooyooyinka heer gobol iyo heer degmo culimaadoodinka amniga bahda saxaafadda yaan halkan ka salaamayaa iyo wasiiradanada sharafta badan ee maama Qamar waxa farxad leh oo aad aan ugu faraxsanahay markii koobaad oo ay timaado wasiiradanadu gobolka Gado inay tahay oo ay nala qaybsato wixii aan qabno dhib iyo dheefba ku soo dhawow inta waa garbahaagi waa sharaftaadi waa kuwa magaca iyo xilkaba ku qaadatay horta ku soo dhawow intaas in ka sii badan ee adiga shaqadaada iyo maxay ahayd awoodaada iyo dadaalkaada ku keentayna way kugu fadhiyaan oo way ka rabaan laakiin gacmo furan iyo waji furan ku soo dhawow waxa laga yaabaa fakar kale in lagaaga dhaadhiciyo gobolkan oo lagu yiri gobolkan ama waxaas ma jiraan no gobolka Gado waa gobol baaxad weyn waa gobol kan aad arkayso nabaddu ay taalo meel ka nabad badan Soomaaliya maanta way yartahay ku soo dhawow waxaana sidoo kale koobta ka hadashay afhayeenka ururka haweenka gobolka Gado Marwo Xukun Cabdulla Aadan iyadoona sheegtay inay wax badan sugayeen wasiirka inay soo gaarto degmooyinka ay matasho aragtana baahiyaha ka jiro wasiirka ururka haweenka ee Jubbaland iyo xuquuqul insaanka Marwo Qamar ayaa halkan noogu timid ayadoo hawlo shaqo iyo kormeer hawlo iyo indhayn u soo aaday iyo daafur guri laga dhisay maxaa ururka haweenka leeyihiin degmada Garbahaare gobolka Gado ee u timid iyo halkan xaaladda u timid jaal wasiir waxaan ku leenahay mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawow gobolka Gado Garbahaare ku soo dhawow ururka haweenka ee gobolka Gado ku soo dhawow gacmo diiran ku soo dhawow baan ku leenahay hadaan nahay ururka haweenka ee degmada Garbahaare ama gobolka ku soo dhawow ugu dambeyntii ayaa waxa hadalka soo afmeeray wasiirka haweenka dowlad goboleedka Jubbaland Marwo Qamar Deeq Xaaji Khaliif iyadoona ururka haweenka kula dardaarantay inay gacmaha isqabsadaan dowladoodana garab istaagaan sidoo kalena ku amaantay siday isugu xiran yihiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. salaan kadib aad baan u faraxsanahay maanta ilaa in shalay waan faraxsanahay waxaan aad ugu hambalyeynaa gabdhaha reer Garbahaare ama Gado joogan gobol iyo degmaba inaan aad iyo aad ugu faraxsanahay soo dhawoontooda qaaliga ahayd iyo sharaftii iyo qoraxda aragtaadii taagneedeen iyo sidoo aad ii soo dhaweyseen aad baan idinkugu mahad celinayaa mahad aan la soo koobi karin waxa la qofkaan dadka ku shukrina ilaahayna kuma shukriyo sida sharafta lahayd ee qalbiga ee walaalsamada ahaa ee fiicneed ee qalbiga furneed aad igu soo dhaweyseen ayaan ana idinku soo dhaweeyay waana ku mahadsantihiin hadda gobolkan waa gobolkii dadkana waa dadkii gabdhahana kuwaan xukumo waa saad u sheegteen mar hore ahayd inaad idin imaado laakiin horta wax kasta waa qadartii ilaahay qof wax kasta aad jeceshahay wax rabto aad sameeysid hadduu ilaahay subxaanahu wa ta'aala ogolaanin waxaad ogaataan inayan dhacayninba xumaan idinkaga maqneen Warsame Xaaji Faarax raadiyaha iyo TV-ga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado.